waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho بسم الله عشركينا maanta wuxuu ka bilaabmayaa chapterka afraad ee fasalka afraad ee dugsiga sare waxa la yiraahdaa radioactivity muxuu yahay marka ugu horeysa waxaan baranaa waa maxay radioactivity horta muxuu yahay waa process lagu soo saaro shucaaca yaa soo saara walxaha ka afal kale waxay saddex eray muhiim ah in kala barataan saddexda eray ee ugu muhiimsan waa saddexda eray koow waxa la yiraahdo radioactivity labo radiation saddex radioactive element saddexdan eray maxay kala yihiin radioactivity radiation iyo radioactive element hoosta haddaan ka soo bilaabo waa soo saare wixii la soo saarayay iyo processkii lagu soo saarayay radioactive element waa walxaha kahval kale ama walxaha shucaaca soo saara waxa ay soo saaraan waa radiation waxa la yiraahdaa waa shucaaca processka ay ku soo saaraan waxa la yiraahdaa radioactivity marka kan waa producer product iyo process waa soo saare wixii la soo saaray iyo processkii lagu soo saaray saddexda shay kaliya hadaba radioactivity waa process is the emission of subatomic particles and rays from the nucleus of an unstable atom walaak waa soo deynta maxaa la soo deynayaa laba shay baa la soo deynayaa wax la yiraahdo subatomic particles saxaro gudeediyo and rays iyo falaaro xagee laga soo saaraya from nucleus of unstable atom waxa laga soo deynayaa nucleus-ta atom aan deganayn waxa laga soo saaraya baa lagu nucleus-ta atom aan deganayn marka haddii lagu yiraahdo radioactivity muxuu yahay waa processka lagu soo saaro subatomic particles iyo rays xagee laga soo saaraya nucleus-ta walax aan deganayn processkaas waxa loo yaqaanaa radioactivity radioactive element muxuu yahay radioactive element hadaad maqashaan waa elementiska waa curiyayaasha which have unstable nucleus kuwaas oo leh nucleus aan deganayn and emit radiation soona daaya shucaac to become stable si ay u noqdaan kuwa degan imika maxaynu halkan ku sheegaynaa balaaga waxaanu nidhi radioactivity waa processka lagu soo saaro subatomic particles saxaro gudeedyada aan rays iyo falaaraha iyadoo laga soo deynayo nucleus-ta walax aan deganayn waayo radioactive element waa cida wax soo saaraysa muxuu yahay radioactive element are elements waa curiyaasha which have unstable nucleus kuwaas oo leh nucleus aan deganayn and emit radiation soona saara shucaac to become stable si ay u gaadhaan nagaasho ama deganaasho haddaba artayo waa unstable nucleus maxaa sababa haddaan unstable nucleus ka hadlo waa nucleus-ta shucaac soo saarta waxa sababaana waa laba shay midkood extra energy oo nucleus-ta ku jira labada xoog ee nucleus-ta ka jira oo kala badan nucleus-ta waxa ku jira laba force mid loo yaqaano electrostatic repulsion force oo u dhaxeeya same positive protonska iyo mid la yiraahdo strong nucleus force SNF oo u dhaxeeya protonada iyo neutronada labada xoog hadba kii bata ayay ku xidhantahay stability haddii SNF ku uu ka weynaado electrostatic repulsion force-ka nucleus-taas waxay noqotay stable
nucleus maxay noqonaysaa stable haddii laakiinse electrostatic repulsion force-ku baday nucleus waxa la yiraahdaa waa unstable kana wuxuu u dhaxayaa protronada iyo neutronada kana wuxuu u dhaxayaa same positive protons waa sababta stability-gu samaysmayso radioactive element hadda muxuu yahay waa element kale unstable nucleus muxuu sameeyaa radiation buu soo daayay muxuu u soo daayay radiation-ka si stability u gaadho the types of radioactivity waa laba nooc mid waa man made bani aadam baa sameeya midna waa natural ama process-kan laba hab buu ku yimaadaa mid lagu dhaliyo artificially ama induced radioactivity ama artificial radioactivity la yiraahdo bani aadamku sameeyo iyo mid la yiraahdo natural radioactivity walxaa radioactive-ka ee shucaaca soo daaya laba hab midkoodun bay ku imanayaan qaar waa naturally oo sidii Ilaahay u sameeyay ay u soo deynayaan qaarna bani aadamka ayaa artificial sameeyay waxyaabo oo sidoo u dhaca artificial kuna halkan aynu ku dhigano waxa lagu yiri most elements kelmadda most marka la leeyahay waa part of the element lama oran dhamaantood waa inta badan elementiska atomic number koodu ama tirada maasku tirada atomic numberka ay ka badan tahay 280 waxay sii daayaan baa lagu yiri radiation bay naturally soo daayaan waa natural waa radioactive tusaale ku siinaya uranium plutonium walxaha soo dhaniba the atomic number koodu ka badan yahay 280 mar hadduu ka badan yahay 280 waa maxay natural waa maxay waa radioactive natural maxay noqonayaan waxay noqonayaan radioactive elements marka most elements have an atomic number greater than 82 emits radiation naturally radiation waxay u soo daayaan si dabiici ah artificial ku muxuu noqonayaa hadaba artificial radioactivity hadaad maqashaan ama aad maqashaan induced radioactivity waa man made radioactivity sidoo ku imanaya stable nucleus ayaa waxa lagu dhufanayaa neutron waatan wata nucleus waa stable anti nucleus baan soo gaabay waxa lagu dhufanayaa neutron markuu neutronkaas buuda galo waxay isku bedelaysaa unstable waxay isu bedelaysaa unstable midaan deganayn waatan induced radioactivity can be done by forcing extra neutron to the nucleus of the atom induced radioactivity-ga waxa lagu sameyn karaa iyadoo extra neutron lagu qasbo baa lagu yiri nucleus atom extra neutron waa neutron side ah ayaa lagu dhufanaya imika sida ka halka idiga muuqata neutron side ah lagu dhufto nucleus saas ku sameysnaa laakiin su'aashu waxa weeye maxaa loogu doortay neutronka maxaa loo qaadan waayay proton maxaa loo qaadan waayay electron protronadu waa positive nucleus-tana waxa ku jira protrono positive ma geli karo sababta waxa u dhaxaya electrostatic repulsion force ama repulsive force oo positive kala haray electronkana nucleus-ta waxa ka horeeyaba shell iskaana waxa ku jira electronskaasina waxay leeyihiin negative charge electronka dibadda kaga imanaya ma geli karo maadaama same charges ama like charges ay repulsion sameeyaan labaduba diversion bay sameeyaan marka shayga kaliya ku habboon waa maxay waa neutron ma laha charge mar haddaanu charge lahayn electronaduna ma soo celinayaan protronada buuda ku jirtaana ma soo celinayso toos buu labadaba u dhaafaya sababta loogu doortay neutronka marka extra neutron lagu qasbo nucleus-ta waxay noqonaysaa unstable mid aan deganayn ka bacdina waxay sii deynaysaa radiation characteristics ay leeyihiin radioactive elements astaamaha ay leeyihiin walxaha kaaval kale ama walxaha shucaaca soo daaya walxahani continually decaying si istaba joogay u burburaya markii lagu leeyahay way burburayaan macnaheedu shucaaca bay soo saareen iminka qalinka waad aragtaan haddii marba in yar ka sii goodo aakhirka uu sii yaraanaya waxaa radioactive elements-kuna marba radiation bay sii deynayaan marba radiation tusaale ahaan atomkii wuxuu sii daayayba alpha markuu sii daayo de maxaa ka go'aya laba proton iyo laba neutron haddana alpha hadduu sii daayo afar kale ka go'aya nucleon haddana alpha saddexaad buu sii daayay afar kale markuu saddex alpha sii daayo imise nucleon baa go'ay 12 nucleon baa go'ay nucleonis maxaa looga jeedaa
nucleons waxa la yiraahdaa protonada iyo neutronada yaa la yiraahdaa nucleons sababtoo ah waxa laga helaa nucleus waxa la soo yiraahdaa magaca guud imika inanka iyo inanta magaca guudeeda ka dhaxaya waa arday Soomaa kelmadda nucleons waa ereyga ka dhaxaya protonska iyo neutronada sababtoo ah nucleus atomka ay ku jiraan marka maxay sameynayaan radioactive elementsku continually decay si isdaba joogay u burburayaan kelmadda decay af Soomaali waa burbur ama mataatax Soomaalida hore mataatax ku macnay jirtay emit radiation waxaan soo daayay baa shucaac qodobadan hadda waxa ku sameeyay shucaaca uu soo daayay radioactive elementku muxuu leeyahay waata radiation from radioactive elements shucaaca ay soo daayay walxaha kaafal kale emit radiation from radioactive elements has shucaaca ay soo daayaan walxaha kaafal kale wuxuu leeyahay astaamaha kow penetrating power ma aha radioactive elementka waxa la penetrating powerku waa shucaaci oo ah subatomic particles iyo rayski shucaaci wuxuu leeyahay awood sideed muxuu leeyahay baa lagu yiri shucaaci muxuu leeyahay wuxuu leeyahay baa lagu penetrating power awood ay wax kaga dusaan ama ay ku dhex maraan imika shaarkaagu ama skinkaagu alfada uu joojinaya laakiinse beetadu way ka dhex baxaysaa gaamaduna way ka dhex baxaysaa awood ay ku kala duwan yihiin xagga dusida ionization energy waxay leeyihiin energy ay wax ku danabeeyaan oo imka shucaacu markuu hawada dhex maro hawadii wuxuu ka dhigayaa ionized macnaheedu waa charged kelmadda ion iyo charge waa isla macno labada ereyna waxay u taagan yihiin midna waa afka chemistry-gu ma ion la isticmaalaa iyo charge-na waa physics marka ionization energy bay leeyihiin oo tamar ay wax ku danabeeyaan bay leeyihiin destroy germinating plant seeds waxay burburiyaan dhirta soo biqlaysa ama midhaha soo biqlaya tusaale imika haddaan qodobka markaan ka hadlayo meelihii Sovietku uu ku tijaabin jiray nuclearka haddaan soo qaato imika tusaale markaan qodobka ka hadlayo meelihii Sovietku uu ku tijaabin jiray nuclearka haddii aan soo qaato ilaa imika caleen kama soo baxdo sababtoo ah maxay radiation-kii baa dhulka ku jira midhaha biqlaya ama germinating seedska uu burburinaya soo wax ka baxi kara ma jiro waxa kale oo dilaa bacteria waaba loo isticmaalaa gamma iyo sterilization-ka marka la sameeyo bacteria laga dilayo qalabka caafimaadka iyo caanahaba producing bright flash wuxuu soo daaya hilaacad markay ku dhacaan walxaha qaar sida fluorescent materials walxaha wadwada ee ay kamid tahay zinc sulfate oo kale gidaarkan oo kale la marinaya zinc sulfate radiation baa lagu sii deynaya radiation marka lagu sii daayo maxaa dhacaya waxa dhacaya radiation markuu sidaa ugu dhaco hilaacad buu soo saaraya marka astaamaha ayaa iskale penetrating power-ka ionization energy-ga destroying-ka waxa iskale waa maxay waa radiation-ka ay soo daayaan walxaha radioactive element awood dusneed buu leeyahay wuxuu leeyahay energy wax ku danabeeyo wuxuu dilaa ama burburiyaa dhirta biqlaysa ama midhaha biqlaya iyo bacteria-da waxay soo saaraan iftiin cad markay ku dhacaan walxaha wadwada sida zinc sulfide oo kale intaas waa characteristics-ka radioactive element types of radiation-kii haddaba la soo daynayay waa saddex waa alpha particle beta particle iyo gamma rays bal magaca labadan waxa la raaciyay particles kana waxa la raaciyay ray sababtu waa maxay markaynu qeexanay ereyga ah radioactivity waxaanu ku soo sheegnay radioactivity waa soo saarista subatomic particles and rays subatomic particles waa labadan marka labadan waa particles labadan waa maxay waa particle labadan waxa weeye waa particle sababtoo ah waxay leeyihiin mass iyo charge waxay leeyihiin mass iyo charge massna way leeyihiin charge-na way leeyihiin laakiin se kan waa maxay gamma waa ray ama wax la yiraahdo quantum of energy waa xaddi tamara mana laha mass mana laha charge marka types of radiation waa alpha beta iyo gamma alpha iyo beta calaamadaha Greek-ana way leeyihiin alpha iyo beta waa particles gamma-na calaamadadeedu wata gaamada waa ray waa falaad ama waa xaddi tamara iyadoo mana laha mass mana laha charge laakiin se labadani mass iyo charge ba way leeyihiin marka properties-kooduna 10 ka dambe noqon doona. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.